السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين السلام أصحابتي قالقة بيجك وبيجك حليمة أحمد علاج وحان إذين وضع مانتا ورتوا إذين سلامة كلكين الدون كمال والبقى كجوكتين وحان إذين لهاي كسور دوادا بيجكيغا قعنا فرن ويجي فرن dhiirigelinta تروا حقينا وحان جعلها هاي sida ay dhiirigeliseen si ka sii wanaagsan ay si ka fiican ay dhiirigelisiin haddana waxaan idin wadaa gabar Soomaaliyeed magaceeda la yiraahdo Baardhicisow waxay ka shaqeeysaa gabdhaha Soomaaliyeed siday hore ugu socon lahaayeen naftooda aga fikiri lahaayeen oo kale sida qurxiska oo kale sida cunto caafimaad leh dadka dhiig karka haayo dadka sokorta haayo wax kasta oo loo baahan yahay oo naftaada caafimaad ay u leedahay ee rabta inay idin kala shaqayso dadka u baahan guriga ku jirowga maadaama corona dhacay wadankii kala xirxiran yahay marka waxaan idin dhihi lahay iyada idinku wareejinaa aad iyo aad anigoo kale iyo dadka ka sii hooseeya iyo aad ay ugu baahan yihiin marka waxaan idin dhihi lahay soo dhawaada welcome gacno furan xaafadda waa village common community center oo ku taalo High Road marka aad iyo aad u taqaaniina umaleena xiriirka waa xaqiina email ay leedahay telefoon ay leedahay ku soo dhawaada qofta u baahan gacno furan iyo waji furan aad iyo aad noo idin la soo dhaweynaa wax allaala waxa u baahantiin waa idin kala caawi doonaa anigana iida idin ku wareejinaa wixii la hilmaamana iida idin sheegi doonta idin sharxi doonto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad u mahadsantihiin sida aad noogu imaateen oo sharafta leh oo waqtigiina aad maxay ahaytoon noogu soo hurteen oo noogu soo maxaa la dhahaa baabi iseen danihiini guryihiini reerihiini ciyaalkiini aad iyo aad u mahadsantihiin ma haddaas ilaahay subxaanahu wa tacaala u sugnaatay meeshaan iskugu keenay caawa waxaan u imaaday meeshaan oo isugu kiin wacay in la sameeyo village common sida gadaashayda aad ka aragtiin Somali woman inaan u sameyno well-being ma ahan in exercise kaliya la sameeyo well-being waxaa waaye in cunto macaan la cuno oo maxay ahaytood healthy ama maxay dhadhankeeda fiican yahay laakiin uu ku yar yahay waxyaabaha dadka ku ridaayo macaanka dhiig karka iyo cholesterolka marka saas daraadeed haddii ilaahay ka raali noqdo waxaan rabaa haddii aad awoodiin in aan sameyno isla centerkan aad arkaysiin axad walbo jiimki waa noo yaalaa macallin yooga ahoo dumar ahna waa noo diyaariyey haddii ilaahay ka raali noqdo haddii ay tahay maanta waa imaanaa berri ma imaan karo waxaa waaye wax soconaya ma ahan laakiin insha allah sadalni wax idinku dhacay ama qofkii danu yeelan karaa program yeelan karaa qofaa ka jiran kara ilmaa ka jiran kara safar oo aadi karaa laakiin inta ka sokayso waxaan jeclaan lahaa inaa imaatiin hadday macquul idiin tahay waa inti imaan karto qasab ma jiro weli yoogada waxay noogu fiican tahay dadka haysto joint problemka ama arthritis-ka haysta ama rheumatism-ka haysto qoobabka lagaaga shaqeynaa jilbaha lagaaga shaqeynaa gacmaha sida aad maxay ahaytood caafimaad aad ku heli leedahay laga shaqeynaa garbaha ilaa iyo dhabarka waxaa kaloo ku soo xigo exercise waa kaas waa ujeediin waxaa yaala baaskiilki waxaa yaala treadmillki waxaa yaala kaleento haddii ilaahay ka raali noqdo macalimad imaan doonta iyadana oo iyadana na tusin doonto sida loo sameynayo exercise-ka iyo wax walba oo ku saabsan exercise-ka waxaa kale oo noo soo haray oo kan saddexaad haddii ilaahay ka raali noqdo sidii loo karsan lahaa in la baro cunto caafimaad leh cuntada annaka aan karsano waa cunto cusbo u badan tahay waa cunto saliid u badan tahay ama butter iyo maxay ahaytood hilib maalin walba marka waxaana la barayaa cunto caafimaad leh sidii loo cuni lahaa haddii ilaahay ka raali noqdo ama loo karsan lahaa marka insha allah tabaarakallah waxaa waaye aad iyo aad u mahadsantihiin iga raali noqdo kun iyo kow jeer dantiini adduunkiini iyo danihiini maxay ahaytood aad ii soo hurteen marka haddii ilaahay ka raali noqdo intaas aan ku soo gabagabeynayaa qofkii u baahan inuu yooga sameeyo axad walbo ama uu sameeyo maxay ahaytood waxaa kaloo jira programkan kan waxaa waaye Somali village common Somali women well-being waaye waxaa kaloo jira program kale oo asna derbigaas ku sawiran oo la yiraahdo walaal walk with me
kaas qof funding igu siisay ma jirto just mida ani samaysta waaye qofkii raba inuu ila socdo haddii aa blackheed degan tahay oo 3 qofood isku toosan aad tihiin waa laydin imaanayaa waa idinla soconaya Charlton Woolwich haddii ilaahay ka ran noqdo Greenwich wax socon doono inay noqoto aan isku taxalujinaya labadii qof ama saddexdii qof oo isku toosan oo diyaar ay ka tahay oo ay ka go'an tahay ana balan waxa ah meesha joogtiin inaan inta ku balanno aan idin kugu imaado aan ku wada soconno waxa kale iyo dheer profession hadda aan baranayo kaasayta ma ahan wax oo funding la igu siiyay ama ay community iyo waxaasayta ay ku shaqo leedahay ma ahan waxaan sameynayaa profession hadda aan rabo insha Allah inaan mar dhow soo dhameyn doono sida wajiga loo qurxiyo iyo waxyaabaha wajiga caafimaad u sameynaayo waa la duqoobay aniga waa duqoobay waxyaabaha oo maxay ahayd wajiga ku dhaldhalaalinayo gacnihii sida loo dhaqaayay lugihii sida loo dhaqaayay iyo timihii sida loo sameynayo intaas waa un extra ah way igu ogeedeen awalba waa sameyn jiray therapy massage qofka u baahnaay gurigayga imaan kari qofka u baahnayn inuu gurigayga imaado 5 banka kaabku iska dhiibaya gurigiisa loogu tagaya massage loo sameynaayo ma sha Allah tabarakallah su'aal qofkii qabo gacanta ha soo taagto waa mahadsantihiin jazakallahu khayr socodka goor allaale iyo maya subax ma joogi aniga subaxdii meel kale aan biisi ku ahay galabti مغرب مركي ساس لو دكدو او الهي كرال نقض 5 o'clock 1 hour 5 to 6 هذا 5 to 6 اودين 6 to 7 depend قفك سيده او تايم كيس او هلو حاجه ku qoran tahay waxa ku kala qoran different maxaa la dhahaa Charlton Park waxa ku qoran Blackheath Park waxa ku qoran maxaa kale inta kan inta ku yaalo kii maxaa la dhahaa iskoolka heblow Plumstead Mana baaga ku yaalo saddexdaas aan ku soo qoray meeshaas emailkayga ku yaalo teleefankayga ku yaalo qofkii raba screenshot ha ka qaato qofkii raba ha sawirto maxay ahayto wax walba information meeshaas idin kugu qoran yihiin dadka badkarska baraysi wala siina certificate ha waa lagu siina certificate oo appropriate health oo maxay ahayto oo certificate waa la idin siinaya insha Allah healthiga abaayo waxaan raadinayaa gabadhii macallimada ahayd oo noo diyaarinaysay oo iyo centerka ay ku diyaarin lahayd laakiin kaas xoogaa yar culays ayaga haysta East London ay ka imaataa waxay dhahdaan aniga area East London kaliya aan sameeyaa because waxaan raadinayaa waxay tahay qof dumar ah hadday yoga tahay dumar idin raadiye exercise hadday tahay dumar idin raadiye haddii cuntada la karinayo ay noqoto dumar idin raadiye gabadhaas marka xoogaa culays ayaga haysta laakiin insha Allah qof kale aan jees gareynaya waa imaan doontaa iyadan haddii Ilaahay ka raali noqdo may gabdhaha Soomaaliyeed waxaan jeclahay waxaan aniga jeclahay inaan nin u keenin oo aan naag u keeno maalin walba naag ay la socdaan ama naag ay arkaan insha Allah jazakallah khair ilaan naba aqaani aan gudara ana bacdaha tugsi exercise haddii Ilaahay ka raali noqdo asagana wuxuu bilaabanayaa أحد صوص عتب وكبلا بينا. أدو إلهي كرام. أحد وحال إيمانا يا 6 o'clock. 6 o'clock هبين. هبين 6 p.m. 6 p.m. الماس كسوكلها هبين وذاك سو صحية. أي قف كلا سؤال قبل مجرى. هذا أساسي حاجة. ما شاء الله تبارك. naagta lacagta la siinaay abaayo oo maxay ahayd ama exercise noo sameeyay ama yoogada noo sameeyayso waa funding ka imaaday maxaa la dhahaa dawladda funding ka imaaday waaye few weeks wax soconaya waaye naftaada keen maadkaaga soo qaado yoogada aan idin sheego haddaba wuxuu yaalaa dukaanka aldig maadki oo kii waa garguurtaa ilaahu tama qofood baa ikcis dhulka waa fadhiista axad kaliya ka dhigta baaris ku weydiino su'aal axad ka dhigta axad waxaa uga dhigay baayo 5 maalmood dadka badankooda waxay mashquul ku yihiin ilmihii iskoolka keen tuition gay dugsi quraan gay axad waxaa uga dhigay inay dad badan axad la ay shaqaynin dad badan inay 9 cid mahana 6 looga ka xanaaqayeen 9 ma sheegta adiga 6 ila 9 6 ila 9 wax walba 1 hour waay 1 hour waay haddii uu macalinka 1 hour na siiyo oo naga tago annaka waa sii joogi karnaa baleyskina waa haysanaa timena waa haysanaa
مور واسميسا كرنا حد كذي كان ماشي waxaan leenahay حد بس ها هدي سنين تنا لا سميه ما سنين تقرتينا واحد هدي سنين تلا سميه اكسرسايز احدنا يوغا لا سميه ان شاء الله سنين فانا كحياتي لا دانو كنت فريسن طبنك قفدا وين ظهر ما laga dhigi karaa baayo ظهر macquul ma ahan because ظهرka badankooda dadku waa shaqeeyaan isniinta meeqa saac laga dhigaa iyadana sidoo kale 6 to 7 yeah 6 to 7 laba gelin laba group ha laba gelin ma ka wadaa ha la isku raaco laakiin markaas ay hal macallin leen helaya inta kale annaka iska xamaalanayno iska kufkufayna ha haddii la isku raaco oo la yiraahdo qaybna waxay imaan kartaa waqtigaas qaybna macallinkan aan helay 6 ilaa dadka ay badan yihiin oo kale waa noqon karnaa laba qayb wixii la isku raaco ha wixii la isku raaco dadka ay isku raacaan ma sha Allah tabaaraka Allah waqtiga available tihiin ku qora waqtiga ima kartiin halo tahdo waan ila soo waca laba group la kala dhigayo afal baxaanshaha ku qorto waqtiga ima karo waqtigaasaan aniga available ahay maalintaasaan available ahay daasi laba hadda imaata benefit ku jiro shan hadda imaata benefit ku jiro Monday Sunday ha available no yogada Sunday da completely waa huba boqolkiiba boqol macallinkii waa haya Sunday yogada Sunday da Monday da jimkaan korkoreynaa macallinkii ma haya laakiin insha Allah waxaan isku taxalujinaa sida intee macallin oo xal qaado adiga barataa u toosiyay dib male adiga maxaa ku waxa igu dhaliyay inaan sameeyo abaayo waxaan haystaa sokor dhiikar iyo cholesterol waxaan haystaa oo kaleento arthritis marka saas ay igu dhalisay in walaalahayga Soomaaliyeed oo dumarka ah in ayakana ka faa'iideystaan oo ay ka qayb qaataan ay u baahan yihiin oo ogaay because lockdown-kii qof walba effect gareeyay qof walba weight-kii uu ahaa wuxuu noqday triple ka badan stress lagu qaado marka waxaan u baahanahay inay stress free noqdaan inay dareemaan maxaa la dhahaa caafimaad ay helaan ma sha Allah tabaarakallah waa mahadsantihiin jazakallahu khayr